السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوداش قيمة هي قدرت إشرافت مدن ملو البدون كون كذا كجوتان سلوا هذا مركب هذه مرة لوضع كذا داونا سموا بيج رسمي عن كل فيسبوك مرة بالبستفضل وحس الشرف إن حارس لك عطانية هدي فريد سنة هاد أما هذا صاحب نور هاد فالله لاي جري برامج نور الرجل لايك هذا سيدا أو كله سير شر جري هدي أنا وعصبت وحاسين حارس لك عطانية هنا نفرو جريسن لأنه جوتنا أنا صاحبت سيدا كلنا سير شر جريسن سيد أنا وهالنا أصحاب سيدا كل وناكسن فضلا كومنتي جرا كوسو بيت أما هالكا صورك فكر كذا سليم كأ ومهم إنه مهمة أدو ما سنت ما أنت برامج كيدي وضو محوية ما أنت واحد يدي وضا برامج كيدي وضو محوية هاي وبرامج تحنقة بقى أنا أكرسه عندهم إن شاء الله وبرامج كسابسن قبل هذا دقموينك يو مامون قبل هذا أنت هذا بقى ما أنت واحد برامج كان أديسه قد بندونه مدكيس ده فرق هاي عاصمة أمة الصومالية مقدشو وعاصمة أمة الصومالية صومالي بالي وابن هاي هذا بقى لكن قالت مقدشة عاصمة أمة الصومالية أما قاصد قبل كبنادر يا إسكال ريركا وبدن سيدا ابن هاي قبل والبا مامون والبا يدقمو والبا وحا أبدا رير أو كأه ماجورتي وأرول الصومالية ولا ودوق هاي هسي شيء أنت بدن وحا أبدا رير أو دقو كواس أولون نسبة لا نديه كروا رير كماشي إسكال هذا ما أنت واحد هالكن يدوس بدبندونا عاصمة أمة الصومالية خاصة قالت مقدشو قبل كبنادر يا إسكان وكم رير كإسكان وكم رير كلابا وكم رير كوكو دقالها بدمي هذا بقى سولو هذا شيء من أبد با شيء من أبد با هذا بقى قبل كبنادر waxa gudoomiye ka ah gobolka Banaadir gudoomiye Umar Finish kaas oo ah nin mudullood ah qaasatan beesha Afghanistan sidoo kale waxa duqa magaalada ka ah gobolka Banaadir isla Umar Finish oo ah nin mudullood ah qaasatan Afghan hadaba gudoomiyaha gobolka duqa gobolka Banaadir labadaba waxa ah Afghanistan hadaba waxa shaki iga jirin ama adinka laftirka shaki iga jirin hadii lacala ay laba qof ay kala ahaan lahayn oo laba xil kala hayso ahna duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka waxay ahaan lahayn laba shakhsi oo Afgaan ah hadaba halkaasi waxa inooga cad in taytarka ugu sareeya ahna duqa magaalada iyo gudoomiyaha ay leeyihiin beesha Afghanistan 17 degmo ee gobolka Banaadir hadaba sida loo kala xukumo iyo gudoomiyaasheedu sida loo kala dago hadaba aan la wadaago degmada ugu horeyso waa degmada Kaaraan taasi cid kale gudoomiye kama noqon karto dadka wasoo ogtiin waa awiyada reerka ka noqon karo muran mara waa biyur degmada koobaad waa degmada Kaaraan waxa gudoomiye ka ah beelweynta mudullood khaasatan Afghanistan degmada labaad waa degmada Boondere waxa gudoomiye ka ah beesha Afghanistan degmada saddexaad waa degmada Cabdicasiis waxa gudoomiye ka ah beesha Afghanistan degmada afraad waa degmada Wadajir waxa gudoomiye ka ah beesha Afghanistan degmada shanaad waa Dharkeenley waxa gudoomiye ka ah beesha Afghanistan degmada lixaad waa degmada Yaaqshiid waxa gudoomiye ka ah beesha Afghanistan degmada toddobaad waa degmada Shibis waxaana gudoomiye ka ah beesha Afghanistan toddobadaas degmo iyo lagu daray gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqi waxa haysta beesha Afghanistan degmada sideedaad waa degmada Hodan waxa gudoomiye ka ah beesha Habargadir degmada sagaalaad waa degmada Xamar Jajab waxa gudoomiye ka ah beesha Habargadir degmada tobanaad waa degmada Wardhigley ama warta nabadda sida u taqaan waxa gudoomiye ka ah beesha Habargadir degmada 11aad waa degmada Hilwa waxa gudoomiye ka ah beesha Xawaale degmada 12aad waa degmada Waabari waxa gudoomiye ka ah beesha Xawaale degmada 13aad waa degmada Howlwadaag waxa gudoomiye ka ah beesha Mursade degmada 14aad waa degmada Dayniile waxa gudoomiye ka ah Mursade cid kale kama noqon karto waxa ka ah Mursade degmada 15aad waa degmada Kaxda waa salaamilaan dheerayaasha cid kale kama noqon karto waa Sheeqaal degmada 16aad waa degmada Shangaani waxa gudoomiye ka ah Cadcadka ama Raxmarweynaha ama Banaadiriga sida u taqaan degmada ugu dambaysa waa Xamarweyne waxa gudoomiye ka ah Cadcadka ama Banaadiriga sida u taqaan 17 degmo waa sidaas sida gudoomiyaha loogu yahay 7 kamid ah iyo gudoomiyaha gobolka iyo duqa iyo gobolka Banaadir waxa ah Afgaan 3 kamid waa Habargadir 2 kamid waa Xawaale 2 kamid waa Mursade 2 kamid waa Cadcadka 1 kamid waa Sheeqaal halkaas waxa ku dhan 17 degmo iyo gudoomiyaashoodii hadaba waa kuma reerka hadaba aan idinku daro reerka ugu dhaqaalaha iyo ganacsiga badan magaalada Muqdisho qaasatan gobolka Banaadir waa reerka loo yaqaan Raxweyn qaasatan beesha Laysan waa reerka ugu dhaqaalaha badan uguna ganacsiga badan magaalada Muqdisho hadaba magaalada Muqdisho waxa reerka koobaad ee iskale loo nisbeyn karaa ama sida u wada jeedna ah beesha Afghanistan waxa la labeeyo
beesha cadcadka ama loo yaqaano xamraawiga ama sida u taqaanidba beesha cadcadka ayaa ah beesha labaad ugu awooda badan ama banaadiriga waa beesha labaad ee xamar la dhihi karo ayaga iskale sababtoo ah waa niman qabto 3 degmo iyo 4 degmo wax ka badan sometimes sidoo kale waa niman aan soo gelin ee ku dhashay kuna barbaaray laguna yaqaan magaalada Muqdisho waana quwadda labaad cid walibana way ogtahay qofna muran kama gelin karo beesha saddexaad ugu hantida iyo dhaqaalaha badan waa beesha raxweyn qaasada beesha laysan haddaba adiga fikirkaaga muhiim weeye nala wadaag kuma isleedahay abgaal xamar oo la yeelan kara annaga sida aan soo daraasaynay cad muran ku jirin waa abgaal iyo cadcadka iyo raxweyn saddexda udub oo ku taagan yahay gobolka Banaadir haddaba dhammaan hawiyaha soo haray intaas ka soo haray sida reer xasan xawaadle shiiqaal murusade duduble dhamaantood markii oo fiirno waa equal power sababtoo ah mar waliba waxa arkaysaa reer haayo 3 degmo haddana sanadkii waxay qabtaan 2 degmo mar wax ma qabtaan hal mar 4 ay qabtaan haddaba wax isku dhax qasan meel lagu hagaaga aysan jirin habar gidir hadda waxay haysaa 3 degmo birka maan waxa arkaysaa in hal degmo hayso ama 4 hayso ama 2 hayso xawaalo wuxuu hayaa 2 asoo waxba hayna arkaysaa murusad wuxuu hayaa 2 asoo dayna labis hayaa arkaysaa sidaas aawadeed ma jirto wax rasmi ah hawiyaha kale ay leeyihiin lagu soo hagaagi karo marka laga jaro murusada daynira iyo shiiqaal oo iskale kaxda inta kale wuxuuda waa laga qaadaa waa loo dhiibaa marka sidaas aawadeed waa equal power oo ma ahan wax la soo qaadan karo saddexda reer Muqdisho ku taagantaan waa saddexdaas reer fadlan waxaan xasan kaaga codsanaya inaad barnaamijka share gareysid haddii aad saaxiib nala ahayn like-ta nagu dhiirigelisid sida share gareysid comment-kaaga nala wadaagtid haddii aad ugu cusub tahay fadlan nala joog sida share gareysid si aan asxaabtada kale u wanaagsan u helno nagasta waxa ah video-gan ka xigo waa galmudug nala jooga reer galmudug hada hadheeraan shaah shubo haruka fogaan video-ga aad u wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh. Peace and love. Wa jacala dhamantii